magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay xaflad lagu daafurayay wakiilka rasmiga ee Hacker Super Somalia oo ah shirkad ku takhasustay agabka iyo daawooyinka loo isticmaalo dagaalanka cayayaanka guryaha iyo goobaha kala duwan. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin, ganacsato, marti sharaf iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Xafladda oo ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa diiradda lagu saarayay daafurka iyo soo bandhigista wakiilka rasmiga ee Hacker Super Somalia, iyadoo lagu soo bandhigayo adeegyo iyo wax soo saarka shirkadda. Hacker Super ayaa bixisa xalal loogu talagalay la tacaalidda cayayaanka kala duwan ee ku dhex nool guryaha iyo goobaha ganacsiga, kuwaas oo ay ka mid yihiin cayayaanka waxyeelada u geysta caafimaadka iyo nadaafadda deegaanka oo ay ugu horeeyaan kaneecada iyo taxsiga. Maamulka shirkadda iyo mas'uuliyiinta xafladda ka hadlay ayaa sheegay in keenista Soomaaliya ee wax soo saarka shirkaddan ay bulshada siin karto fursad ay ku heli karaan agab loogu talagalay xakameynta cayayaanka, iyadoo muhiimad gaar ah la siinayo tayada iyo habka saxda ee loo isticmaalo. waxay go'aansadeen in aniga agentiga rasmiga ah amba waxa representative-ka rasmiga ah ee China oo waxa u fadhiyo qaybtan xaruntan Soomaaliya qaasatan Muqdisho in aan noqdo rabbi hadoo ka raali noqdo. Weynayna maanta sharaf weyn ay tahay in aan ka soo qayb galno xafladda quruxda badan oo ujeedin oo lagu soo bandhigayo waxyaabo aad iyo aad muhiim u ah productyaal runtii aan aad loogu baahan yahay waa best control ah jermiska iyo xasharaadka loogu talagalay in looga hortago. runtii waa wax aad iyo aad loogu baahan yahay waqtiga la joogo iyo meesha la joogo marka loo fiiriyo Soomaaliya. sida ogtiin beeraleyda ama guryaha xaafada marka tagtaan kaneecada waxba lagu qiiqiyaa waxyaabo ay diidayso oo lagu qiiqiyaa jiro haddii qalabkaas ama geedahaas ama dhirtaas la fabrigareeyo waxaan dhan waa la sameyn karaa. marka shirkadda Hacker waxaan ka codsan lahaa raw materialka noo yaala dalka gudihiisa noo yaalo bal intay research sameeyaan ama xarumaha cilmi baarista ka sameeyay sida wasaaradda beeraha, wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, wasaaradaha iyo macaahidda kale ee cilmi baarista ka sameeyay inay la tashadaan qalabka naftigiisa gudaha laga heli karaa qalabkan in loo hormariyo. dhanka kale waxaa munaasabadda lagu soo bandhigay qaar ka mid ah waxyaabaha ay shirkadda ay keento, iyadoo dadka isticmaala loogu baaqay inay raacaan tilmaamaha isticmaalka iyo talooyinka badbaadada ee ku xusan badeecooyinka. ganacsatada iyo martida kale ee ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay furitaanka wakiilka rasmiga, iyagoo tilmaamay in adeegyada la xiriira xakameynta cayayaanka ay muhiim u yihiin nadaafadda iyo ilaalinta guryaha iyo goobaha ganacsiga. xafladda ayaa ugu dambeyntii ku soo dhammaatay jawi wanaagsan, iyadoo si rasmi ah loo daafuray wakiilka Hacker Super ee Soomaaliya, kaas oo la filayo inuu bulshada Soomaaliyeed u soo bandhigo adeegyo iyo agab ee shirkadda ee loogu talagalay la dagaalanka cayayaanka guryaha iyo goobaha kale. Maxamed Usmaan Cali Maxamed Qalfa, warbaahinta Dalsan Muqdisho.